guddoomiyihii garabka dhalinyarada iyo guddoomiyihii garabka haweenka xisbiga mucaaradka wadani ee deegaanka Yurowe ayaa gabi ahaanba iska casilay xilkii iyo xubinimada ay ka hayeen xisbigaasi. Munaasabad kooban oo loo sameeyay dhalinyaradan iyo taageerayaal ka soo digrogtay xisbiga wadani oo ka qabsatay deegaanka Yurowe ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiintan ka soo digrogtay xisbiga wadani oo sheegay inay taageersan yihiin xisbiga talada dalka haya kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. xisbiga wadani isla markaana ku soo biiray xisbiga kulmiye halkan waxaan ka cadeynaya inaan imika kamid ahay xisbiga kulmiye waligeena aan ahaan doono kala soo digoorto xisbiga wadani gudoomiyaha dhalinyarada ururka wadani ku soo biiray iminkana xisbiga kulmiye ahaanayana ilaa intuu jiri doono ka tirsan xisbiga wadani iminkana waxaan u soo guddigarogtay xisbiga kulmiye barka waxaan ahaan doonaa ilaa intuu jiri doono qof kastana la iska raacan qurux badna hore waa loo ogey ninkii wax qabtay ee dalka soo halgamay iminkana qaban doona yaanu ahaanina siyaasi Khaliif Maxamed Warsame iyo sidoo kale cuqaash iyo waxgaradka ka soo jeeday deegaankaasi ayaa iyaguna u mahadnaqay cid kasta ka soo shaqeysay munaasabada lagu soo dhaweynayay taageerayaashan iyo mas'uuliyiinta ka soo digrogtay xisbiga mucaaradka wadani. isaga xaq ugu leh isaga xuquuq ku leh isaga dalkan soo halgamay maanta farteena u baahay farteenaynu maanta ugu hiilinayna soo sida ma farteenaynu ugu hiilin dadada yara gaabanayno hadhay waxa jirta imika arrimo soo baxay ay xisbiyada kala ka ololeynayaan arrimahaas kaadharkiina la iibsanaya kaadharkay qiimo ay doonayaan inay lacag ku iibsadaan aad baan u soo dhaweynaynaa dhalinyarada soo digarogatay aad baan u soo dhaweynaynaa waxa istaba taala silsilad dheer oo ah halgamayaashii dalkan u soo halgamay iyo rag kale oo iyaguna wadanka u dhashay marka waxaynu ku kala saaranaa waxa weeye wax qabadkii hore salaan kadib waxa weeye xafiiskan weyn ee ballaaran magaalada Yurowe ee markii hore ahaa xisbiga wadani ee u soo digrogtay xisbiga kulmiye aad baan u soo dhaweynaynaa halkana waxaanu ku soo dhaweynaynaa qolo nagu soo biirtay Khaliil Barawraan TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.